السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصومالي ميديكال لاب تريننج سنتر. هادو آلد إن شاء الله تعالى وحان بلاوينا إن كورسو شيبار خاصة مادة أن كبرنينا وحيتها يوري أناليسيس أما بارتانكا كاذا هادو آلد إن شاء الله. إن مركا لغا هادلايو بارتان كاذا marka hore qofku inuu fahamsan yahay kaadi waxa la dhahayo kaadi waxa la yiraahdo inuu fahamsan yahay ayaa muhiim ah number 1 marka labaad uu inuu fahamsan yahay inta qaabood ama maxaa la dhahayo qaabka kaadida loo qaadayo ama qofka markii aad rabtid inaad kaadi ka baarto inta way ama inta hab maxaa la kaada u qaadaysid inaad fahamsan tahayna waa muhiim marka intaanan taas u sii guda galin waxaan rabaa inaan ka hadlo urine collection marka laga hadlayo oo ah yani habka kaadida loo qaadayo sababtoo ah marka laga hadlayo inaad kaadi qaado ama marka rabtid inaad kaadi qaado marka hore waxa loo baahan yahay in aan maxaladaha u sharaxno ama qofka bukaanka u sharaxno qaabka oo kaadida maxalada iska soo qaadi lahaa yani bukaankan aad kaadida u direysid waxa muhiim ah inaad u sharaxdid qaabka oo kaadida iska soo qaadi lahaa sababtoo waxa jirto noocyo aad u fara badan oo kaadida loo qaadaya jirto marka midaasi waa inaan maxaladaha fahamsanahay oo maxalada bukaankina aan sharaxaad aan ka siinaa qaabka oo kaadida iska soo qaadi lahaa marka iyo markii maxaladaha bukaanka markuu kaadida iska soo qaado weygaad maxaladaha u sameeyay lahayd preservation inaad kaadidan ilaalisid ama maxallaha meel ku haboon aad dhigtid inaad midaasna fahamtid waxa waaye waa mid aad u muhiimsan marka insha Allah taala marka waxaan ka bilaaweynaa ama qaybteena koowaad insha Allah taala ka hadlayno waxay noqonaysaa kaadi maxaa la yiraahdaa inaan diiradda aan saarno dan inaan diiradda aan sii saarno kaadi markaan sharaxno inaan ka bixino qofkan bukaanka markaan kaadi aan u dirno meeqa way ayaan maxallahay bukaankan oo soo qaadi karnaa bukaankan kaadi inaan fahamno taas markii aan fahamno inta way oo kaadi maxallaha bukaanka oo soo qaadeyno waxa noo fududaanaya markaas inaan kaadani ilaalitaankiisa inaan naqaan marka qaabkaas si loo keedi lahaa ama uu sameeyay lahayd wax la yiraahdo preservation ama ina kaada ay ilaaliso sababtoo ah kaadida xilli waxa jirto markii maxallahay isla waqtigii la keeno in baaritaan u sameeysid in case hadii baaritaanka macnaha waxa waaye aadan sameeynin waxa ku dhacay isbedel marka daraadeeda inaan si deeply ayna u fahamnaa rajeena insha Allah taala waxaan rajeenayaa marka inaan ka faa'iideystaan haduu aalidmo qaasatan ugu hadal doono kilibyadan oo soo duubi doono oo ah barashada sida kaada loo baaro ilaa xaddi ma saddexda qaybood oo kaada loo baarayo oo ah physical iyo chemical iyo microscopic ka hor intaan baaritaanka aanan gelin waxaan rajeenayaa marka waxyaabaha hordhaca ah inaan si fiican u fahmno dan aan guda galno qaababka kaada loo baarayo haduu aalid insha Allah تحكي يا الله إلى حبك يا الله.